bambarkaasi markay hooyadu ka furayso maxay samaysaa dumarka inta badan yaqaan raggu ma yaqaan saxiga ma adu xumba tiraahdo waa kan naga kaaji guriga naga qabo marka hore xafaayad baa loo xidhaa waqti ma leh markuu doonana wuu kaajaa markuu doonana wuu saxaroodaa hadhow baashan lacag bay joogtaa waxaad rabtaa inaad ka furto islaantu markay ka furto waxa laga yaabaa usbuuca hore ama 3-4 cashay ugu horeeya saacad bay u fadhiisaa saacad markuu joogaba mee beedmaankii baa la yidhaha tunjiga soo si fadhiiso markaasaa la qasbaa markaasuu kaaji waayaa markaasuu markaajaa saacad kasta waa la ilaalinaya iyuu guriga gelinaya eega wata xafaayad ma sito waa la raacaa xaafadda dadka joogo dhammi sida xoolahay kaa yar u ilaaliyaan cabaar marka la wado maalmuu la dhuuntaa marmar buu kursiga kaga kaajaa marmar buu halkan waa loo dulqaataa waa la wadaa maalmaha dambe wuu soo bataa 3 saacadoodba mar baa la wadaa maalmaha dambe wuxuu bartaa in waqti la kaaja ay jirto laakiin waa caruura weli lama qabsan wuu ilaabaa markay ka daadanayso ku odhanaya kaada heesa kaada orod musqusha galo maalmaha ku xigtana meeshu ku sii kaajaa maradu iskaga sii kaajaa waayo weli maskaxdiisu lama ay qabsanin last minute-ka inuu kuu sheego akhiiran sida ugu wadno waxaan gaadhsiinaa 10 casho dhowr iyo 10 casho ugu badnaan bil markaynu wadno wuxuu bartaa in waqti la kaajaa jirto meel lagu kaajo gaar ay jirto guriga intiisa kalena aan lagu kaajo inta ama wacdaynu ugu sheegnaa mise farsamaynu ku baraa ka warranta inta ka yarna dhaan wariya dhagayso guriga laguma kaajo halkan guri baa la yiraahdaa xagaana musqul baa la yiraahdaa meesaasi soconaysaa waa qosashay nolosho dhami markaa tarbiya hadaad maqasho waa tacwiid waa qof la train gareeyay qofkan waxa loo train gareynayaa inuu maxay sidaa noqdo ka soo qabo ilmaha waxaynu barraa markaa xaajadiisa inuu guto waynu ku train gareynaa waxaynu ku train gareynaa cunnada hooyadu waxa fiican markuu yidhaahdaba naaska lama siiyo naaska waa inuu waqti yeeshaa markuu yariyay maalan aad u yariyay waxa laga yaabaa saacad 2 saacadoodba mar in naaska loo jiyo wax badanna nuugi maayo waqtiga badanna waa la siiyaa markuu soo yaro koro naaska caanihiisu way isla bedelayaan ilaahay baa ugu talagalay wax laaliya waxa daasad siisan waa poison ma jirto daasad dhakhtareed oo ilma la siiyaa all of them waa poison hadda idin melihi waa wax lagu meel waa sun carruurta la siinayo laakiin shirkadka oo inay dhaqaale waxay leeyihiin rag u fudaydiya waxa kan ma ha war mustafa sheegayo khubaradooda caynka leh wax uga fiican naaska hooyo ma jiro ilmeed ilaahay naaskaasi uu siiyay ilmaha da'du joogo wuxuu u baahan yahay ilaahay ka soo daaya maalinta lagu bilaabayo waxaynu dhahnaa waa dambarku waa maxay waa chemical loogu talagalay meelaan weligeed cunna marin buu marayaa inuu hagaajiyo safeeyo marka hore naasku waa biyo ilaahay baa ugu talagalay ilaa iyo marka dambe laga gurinayana waa caana adag waa dhaqayo geel ragii maali jiray dhaqayo geeliya ma isku mid ah marka bilowga yahay dambarka laga maalayo isku nooc maaha inta u dhaxaysa caan way isbedelaan markasta chemicalada nooc baa ku badan vitaminada nooc baa ku badan proteiniska jaad baa ku badan ku xidhan da'da ilmahan iyo siduu u korayo okay ilmaha naaska marka loo bilaabo yar baa loo siiyaa markuu corona wayna dabdiga bartaa markuu yiraahdaba in la siiyo maaha hadhow ilaa laga gaadhayo marka laga daynayo saacaduhu way koraan waxaynu cunnadaynu barraa Soomaalidu inta badan mooyee ma cunnaday la jecel ka qabano ayuu daadinin iyo waxa laga yaabaa gaalada ma aragteen kursi yar inta lagu xidhxidho ayaa midaan waxba cuni karin loo dhiibaa blade yar iyo malqaad loo dhiibaa markaasuu halka ku daaday halka waxay rabaan inay hore u train gareeyaan dabeetana training-ka markuu ka baxo waxa laga yaabaa 2 jir maalintu gaadho ama 3 jir maalintu gaadho cunnadiisa isaga cuna innagana 4 jir islaan afka kaga guraysaa baad arkaysaa ama 5 jir soo fadhiso way halkan waa si qaldan ilmuhu intuu yar yahay inuu u train gareynaa inuu barto al-i'timaad ala nafs qofku inuu isagu isku filaan karaad rabtaa inaad barto siduu isugu filaanayana maalinba shay baad trainingkiisa bilaabaysaa haddaad kaadi ka daynta maalin bilowday waxaad bilaabaysaa cunnadana inuu isagu barto sida loo cuno maalmaha hore
malqacaddu kolba dhan bay afka ka maraysaa halkuu isku daadinayaa iminka miya gacantaadii afkaaga aad isla daydayda may waa la train gareeyey trainingkii markuu ka batay ayaa haddaad indhaha isku haysiyo haddaad af kala haysatoona mirna miyaad la waayeysa afka laakiin ilmuhu markuu yari wuu la waayaa trainingkaa markuu muddo wado alictimaad calaa nafsi buu bartaa innagu waa sabir darannay ilmaha markaynu iskuulka geynayno adigoo degdegsan dabeetana labada kabood adaa ku jufo yidhaha warstaag xadhigga u xidha islaanta u xidhxidha haddaad kuwa gaalada ilmahooda aragto isagoo 3 jira waxa la baraa siduu dharkiisa u xidhan lahaa soo qaada ka ahaa badhinkaa xidh isagaa loo sheegaya wuu xidhanaya maalmaha hore nusu saac bay qaadanaysaa inuu dharka xidhaa meeshan yare ay geeyaanna habarta joogtaa ka furi mayso waxaa odhanaysa halka istaag fur kaba horta iska bixi wuu bixinaya halkaa saar isaga saaraya sharaba halkan saar kan bixi halkan saar waxaa la barayaa qofka kani inuu ismaamuli karo waa la caawin kari lahaa markiiba daqiiqadda lagu caawiyo samayn karaa laakiin waxaa loo train garaynayaa maxay inuu barto afkaa yimi bini aadamku sidoo afka ku bartaa sugu bartaa marka hore wuu dhegaystaa si uu dhegaysanayo codkuu bartaa dabeetana wuxuu ugu hor bartaa codka hooyadii iyo ka aabihii hadday hadlaan wuu eegayaa isagoo waxay ku hadlayaan aan fahmaynin guriga haddii 5 qof joogto oo ilmo halkan saaran hooyadii hadasho iyaduu eegayaa codkeeduu ka bartay codadka kale kadib asmaaduu bartaa inta badan iyo erey yaroo isticmaalo jumlo ma barto caano ayuu leeyahay markuu caano doonayo caano isii ma wada odhan karo biyo waxaa laga yaabaa waxa la cabo dhan inuu biyo u barto in la yidhaahdo ama waxa la cabo dhan inuu caano u barto ereygii ku soo horreeyo maalin bay erey buu bartaa kadib wuxuu bilaabaa hadal laakiin hadalka makhaarij alxuruuf ma yaqaano meesha ereyga laga soo saaro xarafkan meesha laga soo saaro ma yaqaano wuxuu ku hadlaa erayada oo jajaban reerkoodunbaa fahma markaa caynkaasuu leeyahy hooyadii waa kaaga tarjumaysa hebel buu yeedhaya waxan buu sheegaya waxa isiiyuu leeya siiya dadka kale ma fahmin waxa uu sheegayo waayo makhaarijtii baa lunsan weli laakiin siduu u tijaabinayo makhaarijta bartaa dabeetana erey buu u bartaa kadib buu bartaa 2 erey in la isku xidho kadib buu bartaa jumlad in la samayn karo kadib buu bartaa hadalka in la xasuusan karo kadib buu bartaa inuu ku fekeri karo kadib buu bartaa inuu maxay waxay yidhahdaan 2 jir meelaha markuu marayo ilaa 2500 oo erey buu baran karaa 3 jir 4 jir tiraa loo hayaa qofkaasi markuu da'daa marayaba inuu intaa soo eray haddaanu intaa garanaynin waxaa la yidhaahdaa waalidku may train garaynin qofkan waxaa la rabaa markuu hadalka baranayo inaynan ku qoslin ama ka tumanin inaynu isku dayno inaynu u saxno erey cusub inaynu barno jumlad inaynu barno afafku luqadu waa waxyaabaha ugu weyn qofka bini aadamka nicmo ee ilaahay siiyey aadanahana waa wixii ilaahay ku karaameeyey nabi aadam maxaa lagu karaameeyey wacallama aadama asmaa kullaha intuu malaa'igta kaga mudnaaday maxay ahayd tan bay ahayd luqadu waxay yidhaahdaan waa nicmooyinka ugu waaweyn ee bini aadam ilaahay siiyey waxaad qiyaastaa qof bini aadama oo aflo oo dhagaala qiyaas wuxuu dareemayaa aan kuu sheegi karin waxaad adigu dareemaysaa aanad u sheegi karin waxbaba luqadu waa akbar nicma saa daraaddeed baa ilaahay wuxuu inoogu mana sheegtay alraxmaanu callama alqur'aana khalaqa alinsaana callamahu lbayaan baa ilaahay yidhi callamahu lbayaan caddayntaa ilaahay baray altacbiir cama fi nafs luqadu waxay ka mid tahay aayaadka ilaahay lagu garto ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين بإلهي لغضه وتواصلك وواحد بني آدم كو حريره واحد دوني سوى واحد كو شيء كرته واحد كفكر سوى واحد كو شيء كرته وواحد ليس كفهمه لغضه waa waxa sida dhaqanka
iyo caqiidada iyo afkaarta ummadi leedahay luqadu waa qiima fanniya waa mutca fanniya bay leedahay adabkeedu afka hooye bay yidhaahdaan waa afka guriga laga barto markaas si aan macallinku barin waa afka bay yidhaahdeen dhaxalka ummadi leeday sida waa afka sida baa la yidhaha hiddaha dadku leeyahay waa baadi soocda ama waa sumadda dad leeyahay sida awgeed ummadda afkeeda weyda dhaqankeedii iyo dadnimadeedii way weyda soomaaligu waa maxay soomaaliga ma waxaa moodaysaa inuu qabiil yahay maaha soomaaliga identitygiisa huwiyadiisa ugu weyna lagu yaqaana waa afka soomaaliyeed maalintuu afka soomaaliyeed ilmuhu waayo ma aha soomaali wuu ka baxay ilmuhu hadduu af soomaali waayo maxaa diintiisa lagu barayaa qofna af kale kuma dhergo dunida waxay yidhahdaan maanta aynu ku noollay dad bini aadamku soo afafka u qiimeeyo waxay yidhahdaan 500 ee jaamacadood ee dunida ugu qiimaha badan leh oo 35 waddan oo dunida ka mida ku yaala jaamacad kastaa afkeeday ku dhigtaa 19 waddan ee dunida technology-ga hogaamiya waddan waliba afkiisu ku dhiga saa awgeed waxaa la yidhahdaa af cilmi ma jiree dad kale baa afkooda cilmi ka dhiga inagu se waxaynu moodnay ingiriisiguna inuu cilmi yahay af soomaaliguna uu jahliye jahligu waa inaga maaha af soomaaliga jahligu waa inaga moodnay markaynu afkeenna luminay inay wax fiican tahay wax fiican maaha waa dhaqan xumo halkii u dambaysay waa caqli liidasho halka ugu dambaysa inaynu afka luminaa soomaali ilmahaagu noqon maayo haddaanu afka aqoonin diin fiicanna baran maayo haddaanu afqoonin naadir mooyaane waayo af kale qofku kuma dhergo mahma aan af ingiriisi iyo carabi garanayo waxaan doonayo kuma sheegi karo soomaali baan waxaan doonayo ku sheegi karaa ilmaha soomaaliyeed baan waxa madaxayga ka guuxaya u tallaabin karaa laakiin afafka aan akhriyo uma gudbin karo ilmaha ku kobca waxaan dareemayo dhan idan haddaad ilmaha afka ka lumisaan in badanoo ka mida dhaqankiina waa ka tuurteen in badanoo ka mida diintiina waa ka tuurteen laakiin innaga waxaynu haysanaa af soomaali wuu iska baran doonaa haddii alla yidhaahdeen markaasaad waxaad diidaysaa inuu isagoo af soomaali jajaban kugula hadlo markaasaad adigu af ingiriisi jajaban kula hadlaysaa saxanka maaha adaa af ingiriisiga jajaban ku hadlaya isagana waxaad u diidaysaa af soomaali jajaban markuu hadlaad ku qoslaysaa maya ilmahan inaan dhiiri geliyo weeyaan af soomaaligiisa jajaban inaan soo dhaweeyo weeyaan inaan wax u biiriyo weeye inaanan anigu af ingiriisi jajaban kula hadlin weeyaan ilmahayga haddaad rabto markaa waxaynu nimi meel dagaalu ka jiro ninka hindiga ahi markuu waddankiisii joogo dagaalkan ku jiray indiya boqolaal af baa lagaga hadlaa boqolaal diimood baa lagu haystaa boqolaal dhaqan oo kale nooca la haystaa saa daraaddeed markuu waddankiisii joogay buu qof feejig oo fayow ahaa oo ilaalinaya diinkiisa iyo afkiisa siiga ka yimi indiya halkan markuu joogo waa siig afkiisiina uu ku hadlaya dabcaabudka jooga indiya ka yimi halkan markuu joogo waa dabcaabud afkiisiina siisiibuu ugu hadlaya muslimka joogaana afkiisii siisiibuu ugu hadlaya isagoo 5 qarni jooga inana kuwaynu keennay baa iminka afka laba garanaynin iyagoo nool aynu la ordayno kuwaynu keennay iyo waxoogaa ingiriisi iyo jajaban garanaya umes ingiriisigay ku hadlayaan oo dhamma waa tan suuqa suuqu wax kaga iibsan karaa kuna warwareegi karaa laakiin af cilmiyeed maaha ama af culture xambaarsan maaha haddii culturally loola hadlo ma fahmayo marka kiisiina wuu lumiyey ku kalena ma haysto in aad u badan soomaalida af soomaaliga la liita umamkuna maadaama caynka u arkayaan af dhintay bay ummadaha qaarkood soo noolay yuhuudda ma taqaanaa dowlad maanta yuhuud la yidhaahdo soo ma maqashaan israa'iil la yidhahdo halkan jirta af dhintay bay soo nooleeyeen si ay dadkooda wax ugu baraan oo u noqdo luqada rasmiga ee waddanka af cibriyaa dunida ku hadli jiray
kaasaa inta dib loo nooleeyey maanta takhasusaadka daqiiqee dunida qaar ka mida lagu qoraa ka mida jaamacaadka dunida ugu horeeya maanta ku yaala Israa'iil qaar ka mida teknolojiyada badh bay dunida hogaamiyaan iyagoo ku barta maxay af cibri af kumanaan sano ka hor lagu hadli jiray intay dib u nooleeyeen bay waxa ka dhigeen af nool inana mid noolo hadda dadkii ilaahay joogaan bay rabnaa inuu dhinto أنا عرفت في إنجليزي قال إن شاء الله دين تقولها في إنجليزي كسر دقيسني أو قولها في عربي كسر دقيسني سأصدق هاي سطح كوانا وحكم فهمه مركي قصلانون بالله قصلا لكن واحد لك ما قرته واحد رسمي جي مركي وحي هاي واللغة وضدني مديني وحنا أدوق قفك أجمعين الصومالية ولحيسها وهايسا أنا تكون نقطة وتعشى دتك هذا أفكارنا الساعة كلجر كات قرنا الساعة دقة كات فهم الساعة يسوي لكن بدنا مرة به واي كلجر كودنا ما يقان دقة كودنا ما يقان سيو فكرينا واي أفكار سيدا هدوق أفكار واي أفكار سر رسمية وقرتين دقة كيسات براتي ترى هذا الدرجة يبيسب بيرسنت في عم بانكنا وحاصل من محي شيئا عرورتي بحرماتي ميا waxay sheegayaan mas'uuliyad darradeennii waalidiinta jahligii waalidiinta haystay qaarna waa dadaaleen laakiin wada qaldan buu la dadaalayay isna dhimay caruurna ma hayo inina marka horeba mas'uuliyadda may qaadin oo xilka ismay saarin haddaba haddaan rabtaan inaynu qaran guurana daan halkaa ka wadno dadkana u dhallo guurkana badino caruurtana badino nin iyo 8 iyo 7 u dhallo 4 dumarna guursano laakiin dad kale aynu badin marka Soomaaliya joogteen laandheera sheeganaysan baaba la qaato tolka baad badinaysay imika tolka la badinaysa wallahi tolka la badinaysa inaan tolka ana ahayn hata ka badinaysa aniga risaaladaydu waa inta waxba idinka maqane raadiya wassalaamu calaykum